السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan in salaamaya family dhammaantiin meel kasta yaad caalamka ka joogtiin iyo waqti kastoo idin tahaba insha allah. maanta wax yaraan insha allah isbaraarujinaynaa, wax yaraan isdhiirigelinaynaa. runtii halkan waxa weeye waxaan ku midownay health active lifestyle inuu qof kasta oo noloshiisa wax ka bedelo, boodigiisa, jirkiisa, quruxdiisa, caafimaadkiisa, stylekiisa, inuu qofku macnaha uu bedel ku sameeyo caadooyinkiisii hore, cuntadiisii hore, waxyaabihii hore uu sameey jiray, waxyaabihii hore uu cuni jiray si uu isbedel u helo. marka sidaa darteed waxaan rabaa inaan su-aal idin weydiiyo intiina halkan ku jirta 119 oo halkan ku jira. marka waxaan rabaa inaan su-aal idin weydiiyo, halkan sababtaad usoo gasheen maxay ahayd? marka koowaad, marka labaad, ma gaartay hadafkaagii aad halkan usoo gashay, groupkan aad uga soo mid noqotay? macnaha marka hadday aad gaari weyday hadafkaagii, maxaa kaa hor istaagay? ma balaankiyaa kuu shaqay waayey? ma qorshihiyaa kuu shaqay waayey? macnaha maxaa kugu dhacay? okay, haddaad hadafkaagii gaartay, waad gaartay, waan ognahay dadka hadafyadoodii gaaray. keep going, idinkuna gadaal ha u laabanina, oo markaad hadafkaaga gaarto dee gadaal looma laabtay, horaa loo sii socdaa insha allah. iyagana aad baan ugu hambaleynayaa. marka waxaan dadka aad ula hadlayaa waxay tahay, runtii dadka maaragta give up ka sameeya, dadka xiisaha badan, hal bil kaliya wax bilaabay joojiya. waxaan rabaa inaan idiin sheego, hal bil iyo 2 bilood waxba laguma keeno, waxna guulna laguma gaaro. hal bil iyo 2 bil waa inta aad la qabsanayso, caadadaada bedelayso, maaragta cuntadaada bedelayso. marka hal bil iyo 2 bil guul laguma gaaro. qofka wuxuu rabaa inuu miisaan 30 kiilo ama 40 kiilo hal bil ku rido, kuma dhacayso. maxaa yeelay hal bil miisaanku kuguma korin. wax kasta fiiri, wax kasta oo dadka horumarka gaaray dhan walba ha ka gaareen, hadday noqoto aqoon maadiya, hadday noqoto aqoon maaragta diiniya, hadday noqoto nooc walba ha noqoto, waxaan dhiba loo soo maraa. qofka maanta dhakhtarka ah, imisa subax ayuu iskool usii socday, imisa subax ayuu jaamacad kusii kalahayay, imisuu soo jeeday, imisa cirro kasoo dhalatay. macnaha dhakhtar layska noqdaa ma jiro, soo maa? shiikh umal ama qof caalima maanta imisuu wax baranayay, dee shiikh layskama noqdo. okay, qof maanta jirkiisa qurxiyo, jirkiisa dhiso, qurux badanaad aragtay, adiga muxuu dadaal sameeyey mu ogtahay adiga? okay, waxaad aragtay qof miisaan badan leh oo cayilay, oo miisaankiisu badan yahay, intuu cunto cunay, intuu jiiftay, intuu hurday, maxaad ka ogtahay? macnaha waxaan ka wadaa, war waxaan noloshan laguma bedeli karo, dhan walba ay tahay, dhinac walba ay tahay, hal bil laguma bedeli karo, 2 bil laguma bedeli karo. guys, waxaad u baahan tahay inaad wadadaada hesho, wadadaadana aad ku socoto. tusaale yaraa idin siinayaa. maantay waxaad ka dhaqaaqday gurigaaga ayaad ka dhaqaaqday, ama baabuur wado, ama wax kala wado, ama lugee, maya lugeeba, gaariba iska dhaaf, lugee. waxaad ka dhaqaaqday gurigaaga ayaad ka dhaqaaqday, waxaad u socotaa meel kuu jirta 500 kilomitir, waana lugeynaysaa. haddii aad biyahaaga qaadato iyo cuntadaada oo 500 kilomitir u lugayso, waad tegaysaa. hadda ogow, baabuur ma saaran, diyaarad ma saaranide. maalinba meel baad tegaysaa. maalin 8 kilomitir aad socotay, maalin 10 aad socotay, maalin 20 aad socotay, maalin 15, maalin 1 kilomitir, 2 beri waad nasatay, maalin kale. macnaha waxay tahay wadadiyaad saaran tahay, marka dambe meeshii waad joogtaa. taas yaa igu beeri karaa. war noloshan processkan nooc walbay tahana waa saas weeye. laakiin haddaad give up samaydo oo aad gadaal u laabato ama aad iska istaagto, wax aad soconaysaa ma jirto, halkaagiyaa taagan tahay. lagaba yaabo inaad gadaal u noqoto. adduunkan marka maalmo yaraan joogaynaa, maalmahaas marka waxaan rabnaa inaan ku noolaano farxad iyo caafimaad iyo lifestyle. ka waran maanta haddaad dharkaagii dhar qurux badan oo kuu yaalla, ama xaajigaaga kuu gaday, ama adugu aad gadatay, aad ku labisa weysay, maanta uu kugu soo bixi waayo. ka waran haddaad maanta markaad muraayadda tagto, aad muraayadii ay ku qanci weyso. ka waran marka maanta tagto, aad dadka meelaha qaar ay dadku baashaalayaan, ay ordayaan, ay faraxsan yihiin, aadan adigu farxaynin, oo miisaan aad overweight tahay. maantay waxaasoo dhan waxaan helnay wadadeedii. maanta dee Herbalife aan helnay oo nafaqada adduunka ah,
oo qofku ku quraacanayo oo qofku ku cashaynayo qada yaroo kontaroolan ma miil balaan la-aana kugu dhacday ma qorshe aad raacdaad weyday berigii hore waxaan ka cabanayseen cuntada ma sixi karo cuntada ma kontarooli karo cuntada iskuma dheelitiri karo quraacda ma waa run cuntooyinkan caadiga aad bay ogto qofka bini'aadanka haddana wadamadan qurbahan cararayno la ordayo inuu qofku wax isku dheelitiro oo maalin kasta dee wax isku habaysto aad bay u adag tahay laakiin hadda waaba lagu diyaariyaba kambanigan aad ba heshaba ilaa 26 fitamiin iyo borotiinadoodii iyo nafaqadoodii iyo nutritionkoodii active lifestyle producteed haysataa haye calorieski waa controlan yahay nafaqadii waa daily tiran tahay coachkaaga waa kan halkan uu ku leeyahay keep going hore u soco miisaankaaga ii soo dir maxaa iska kaa bedelay adigii unbaa marka gadaal u sii noqonaya maxaa gadaal maxaa kaa jira okay cunto haday faa'iido leedahay cuntada u xiistay Soomaa cuntada day karin ha bariiska jeceshay baasada jeceshay oo xawaajka badan lagu kariyay McDonald's ka jeceshay junk food ka jeceshay Coca-Cola jeceshay caanaha jeceshay alaabtaas jeceshay hilibka waxa jeceshay qaybta maaragta faatka oo hilib ari ayaa jeceshay okay xalwada iyo buskudka jeceshay macmacaanka jeceshay maaragta outin ina aad jeceshay okay su'aashu marka waxay tahay imisa sanad waxaan soo cunaysay hadday faa'iido leeyihiin imisa sano soo kuwan overweight-ka kaa dhigay soo kuwan miisaankaagii badiyay soo kuwan runtii adigiiba maaragta noloshaadii caajiska iyo culayska iyo hurdada geliyey marka miyaan aqligu shaqaynayn marka miyaad go'aan ka gaari weysay marka waxaas oo dhihi weyd yes noloshaydii hore quruxda badneed raba inaad soo ceshto guys hurdaad ku jirtiin hurdada ka kaca coachku waa diyaar qorshihii waa diyaar blank waa diyaar qofku hadduu raaco balankii aan siinay wuu guuleysanayaa one day one time wuu guuleysanayaa kuma dhahay dee bil iyo laba bil waxay ku xiran tahay dee processkaaga iyo miisaankaaga iyo hadafkaaga iyo ujeedkaaga iyo inta dee markii hore ayay ku xiran tahay okay processkiina marka wata balankiina raaca subaxii qofku sheegiisa ku quraacdo nafaqadiisa u dheeli tiran tahay war cashada sheegaaga isticmaal war qadadaadu aad ha u koobnaato qada badan ha cuninina laakiin wax yar oo nafaqa la cuna xogaa yar oo bariisa xogaa yar oo malay ah qudaar yar maartay chickenkiini yara ukuntiini hawshiini wixiini yara qadada dhac wixiiba waa diyaar babe maxaba wax laga rafaado meesha midda kale ma macaan yihiin ma xaraar yihiin muhiim maaha taas cuntada inay kuu macaanta inay ku xirta muhiim maaha maxaa yeelay mid macaan ood ku raaxaysanayso waa midda miisaankaaga badisay waa midda aan rabno inaan joojino daawo macaan miyaa jirta qofku markuu xanuunsado maxaa loo qoraa sharoobo kaniini dawo marka dawo macaan weligiin ma aragteen waa iyadoo qaraar baa la laqaa sababta loo laqayaa maxay tahay dee daawo inay tahay oo dee caafimaad iyo cudurkii aad maaragta ilaahay kaaga caafinayo muhiimaddu marka waxay tahay cuntadan hadda anagu aan isticmaalna aad bay u macaan tahay laakiin adiga waxa laga yaradaa ka helinba okay laakiin muhiimba maaha inaad ka hesho laakiin waxaa muhiim ah inay hadafkaagii ku gaarsiiso aad baan idinkugu dheereeyey raalliga ahaada insha allah biidhnillaahi kariim hore u socda jawaabaha